الرحمن الرحيم maanta waa maalin taariikh weyn leh kuna yeelan doontaa dalka Somaliland xukuumaddiisa iyo shacbigiisa. maanta waxay noo yimi Somaliland oo la ictiraafay wasiirkii arrimaha dibadda ugu horreeyey wasiirka arrimaha dibadda dalka Israa'iil aynu saaxiibka nahay inuu noqdo wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland oo la ictiraafsan yahay yimi. dalka Israa'iil wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyey ee Somaliland ictiraafay 26 Juun 1960. markii labaadna wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee 26 December 2025 mar labaadkii aqoonsaday Somaliland.